هذا بوي انت يا ilmahayga aniga in liiga xoog aan dilna la igu sii daray labadeed mid waaba meed waaba la dugaba mid kalena dhibaato far badan ay haddaba daawade sidaad muuqaalkaba ka soo aragtay waa fal bahalnimo oo ka dhacay degmada Dharkeenle waa hooyo Soomaaliyeed oo cunugeeda laga dilay gabadheedana jirdil xoogan loo geystay cunugeeda oo da' yar oo laga dilay oo nin saygeeda ay kala tageen oo ciyaalkeeda oo ka watay naag uu qabi jiro oo u geeyay aan kula wadaago xogaas iyo xogo sir ah nagu soo biir janaalka subscribe noo dhig gambaleelkan u furo muuqaalkan like talax wixii fikir aad ka qabtidna qaybta commentiga noo la wadaag fal bahalnimo ayaa ka dhacay degmada Dharkeenle hooyo Soomaaliyeed oo ciyaalkeeda ay kala wareegay xaajigii ay isqabeen maadaama ay kala tageen oo ciyaalkeeda kala wareegay hal gabar iyo hal wiil oo da'aada 4 sano jir iyo meelahaas u dhaxeeyo iyo 3 sano jir iyo da'aada meelahaas u dhaxeeyo xaas uu qabi jiray oo u geeyay oo ciyaalka eedadooda eedadii ayaa ciyaalka mar walba see u jirdili jirtay jirdil walba ay u geysatay mar ay iskoobo ku garaacdo iyo mar ay ciyaalka badab ay ku dhajiso wax walbana ay u geysato si ay mar ay nafta ciyaalka ugu qaado ileen ciyaalka ayada ma dhalin ninka qaba ayaa u keensaday ninka qabana xaaskiisii hore ayay isku soo dhaceen oo ciyaalka u dhashay labada ciyaal ayuu ku xumeen iyo iskhilaaf meeshooda soo dhexgala ugu soo watay labada cunug oo naag uu qabay oo u keenay naagtii oo ciyaalka eeda u ah ayaa jirdilkii ugu dambeeyay u geysatay gabadha yar oo hadda ka badbaaday ayaa nolol riski ah ku jirto saldhigga booliska ee degmada Dharkeenle ayaa ku soo dhigay gacanta gabadha yar saqiirta ayaa la wareysanayaa iyo ayaa wareysi laga qaadayaa gabadha yar oo sheegayso in walaalkeeda horteeda lagu dilay sida loo jirdilay ee jirdil walba ay u geysanaysa ee eedada nafta ka qaaday ay waxba u reebanin eedada gabadha oo la tusaayo hal dhinac dhan in ay eedadeeda ka gubtay si ay gabadhana ay u raacsiisa ayeeratay ee ka ugu siiso eedada oo laakiin ay u soo urgali weysay maadaama wiilka ay dishay booliskana ay gacanta ku soo dhigeen baraha bulshadana uu qabsaday dad badan oo Soomaali ah ay aad iyo aad ugu ooyeen maadaama ay arin aad u xun ay tahay ciyaal yarna ay si xun ay u gashay maadaama ay ayada dhalin fal bahalnimana ay ula dhaqaaqday ciyaalkana ay gubtay maalin walba sidee doontana ay u garaacaysay iskoobo ay ku dhameynaysay wixii doontana ay ku sameynaysay ugu dambeyn ciyaalka wiilka ayay ka dishay maamadii oo wiilka laga dilay ayaa media la hadashay oo sheegtay in fal oo wuxuushnimo loola dhaqmay saygeeda ay kala tageen ilmihii uu ka batay naag uu qaban uu u geeyay gabadheeda yar iyo wiilkaba uu ka batay wiilkii hadda ay la dilay maadaama jirdilkiisa ugu wada meel walba ay ugu tumaysay ay u gubaysay wiilkii xanuunka u dulqaada waayo uu dhintay ayaa hadda gabadhan hal dhinac dhan ay ka guban tahay oo media la tusayaa baraha bulshadana la keenay booliska oo gacantana ku soo dhigay muuqaalkeeda ayaan kula wadaagi doonaa soo dhawow daawade هذا بوي انت يا ilmahayga aniga in liiga xoog aan dilna la igu sii daray labadeed mid waaba meed waaba la dugaba mid kalena dhibaato far badan ay